miidaamuhu waa qofka sii dhimanaya miidaamuhu qofka sii dhimanaya naftu hayso ee geeri halkan ugu qoran dhag ku dhigi maayo haddii malag uu gacan haadin ayuu yeedhayo malakul mawdkiiba u yeedhaya ku dhagaysan maayo marka in alla inta meeshan ku dhimanaysa cid ma maqlayso ninkii la odhan jiray ibn ashcaf ragga la hadlay waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray muhallab ibn abi sufra muhallabkaasina wuxuu ahaa raggii muxanakiinta ahaa ee dagaalka aadka u yaqaanay ee lodkiisanoo kale ahaa ee madaxda reer bani umayya ka mid ahaa ee cadowga xorayn jiray waraaq buu qoray wuxuu leeyahay war madaxdaha caasiin war way ka dariye ka rayn maysida ka dah wuxuu leeyahay qad wadacta rijlaka fii rikaabin tawiil wallaahi lugta waxaad saarta meel aad u fogoo kula fogaan karta ibqi calaa ummati muxamadin allaha allaha waar ummadda nebi maxamed ilaahay kaga cabso naftaada ha halaagin dhiigga ha daadinin waljamaacata laa tufariqa walbaycata falaa tankudha baycad ku jirtaa oo madaxweynaad heshiis la gasha ha jabinin muslimka dhiiggiisana ha daadinin ninkaasi aad buu ula hadlay waraaq dheer buu qoray waaye arrinkii markaa wuxuu istaagay qir iyo qir cabdulmalikna muu dee ninkii isaga ahaa wuxuu doonaya uma yeelin ninkiina wuu tanaasuli waayey waxaa markaa dhacday cabdulmalik ibnu marwaan oo madaxweyniya oo markaa dee xaggaa shaam buu xaruntu waa shaam dimashq iyo dhulkaa wey reer bani umayya dowladdii xaggaasa xarun u ah wuxuu markaa yidhi miyay soo noqon waayeen haa xajaaj buu markaa u soo diyaariyey col culus oo ciraaq ugu yimaada oo dee waxaa markaa macruufa dee qofka madaxweyne loo ictiraafsan yahay ee muslimku baycada la galay dee waa cabdulmalik un wey haba qaldanaado waxaa dulmiyayo laakiin ninka rasmiyan dee meeshii imaka haystaa waa isaga un colkaasuu soo diyaariyey col aad u fara badan ayuu soo diyaariyey ibnul ashcafna isaguna abaabul aad u badan buu sameeyeyoo waxa uu isaguna isu diyaariyey inuu col urursado col badan buu isaguna soo urursaday wuxuu isu keenay markaa 33,000 faras wa 120,000 raajil gaadiid teknika ahoo 30,000 oo nin oo fardafuula iyo 120,000 oo nin oo lugaynaya 150,000 oo qof oo intaasina lugaynaysa efenterit intaasina gaadiid fuushan tahay ayuu soo diyaarsaday rag baa la taliyay waxay yidhaahdeen war waxani waa dagaal in mabda' lagu dagaalamo wey sidaa daraaddeed ninkanna waa xajaaj ninkan kaa hor imanaya nin sahlan ma aha waxaan kugula talinaynaa culimmada iyo quraa'ada iyo nimanka fiqiga yaqaana iyo nimanka cibaadaysta iyo culimmada doon soo ururi culimmada ha iskaa garab taagaan maalintaasuu dadku ku raacaya mar alla marka la arko ibnu ashcaf in culimmadii waddanku ku raacday ciraaq khuraasaan dhulkaasoo dhan ayaa lagu raaci doonaa sidii buu yeelay culimmadii buu ninin ugu tegey ragga aynu sheegi doonno magacyadooda ayuu ninin ugu tegey waa raggii dee waddanka culimmada ka ahaa wuxuu leeyahay xajaaj binu yuusuf inuu dhulbi'is yahay mufsida oo dal iyo diin iyo dadba kharribay sheekh hebel miyaad ka shakisanta maya kama shakisanin dee maanta waa la fujinayaa ninkii udubadaa loo saaraya waa la tuurayaa waa la fujinayaa miyaad ka hadhay mise waad nala hinjin diinta ilaahay baa loo nusraynaya xajaaj baa daaqadda laga tuurayaa bal maya ina mariya waayo haddaba dadka soo wacdi ceel iyo cadhaa dadku khadyaan baa laga taagan yihi kolkaasaa nin waliba dadkii wacdiyey hadalladaynu sheegi doonnaa kolba nin ka hadlay war ninka ha la qabto war xajaaj baa maanta loo baxay war ninka ha la raaco dee col aad u fara badan buu sidaa ku soo diyaarsaday iyadoo culimmadu ay la socdaan aad u fara badan inu cidba ka hadhayn alxaafid ibnu kaiir waxa uu leeyay watafaaqama alamr
وكثر متابع ابن الأشعث على ذلك أرنكي وسيع صلاضي رقي راعي ابن الأشعث نآد بوبطي وتفرقت الكلمة جدا كلمة دي مسلمين تنوي قيب سنتي وعظم الخطب وتسع الخرق بلادينا ويسيوينا كلاكعينا وبطي لبادي على المركعة ويس هلان يوم الجماجم أما ميل لا هذا دير الجماجم أي ميل أيا لوها لسكوها لوكاس مركا كم إذا عراق أيا لسكوها لي رجع مركا قوبتا إيدا أبابرك حق ابن أشعث للسعودية وحكم إذا إمامك وينا لورن شري عامر ابن شرحبيل الشعبي رحمه الله إمامك ساكم إذا ودمر كل حجات باش قلق قبنايا isna taageeray ninkan kacdoonka sameeyay ee falaagoobay Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah markuu xajaaj ninka tacliiqinayo imaamka Shacbi waxa uu leeyahay saddexba ummadda nabiga ugu cilmi badnaa ibn Abbas waqtigiisii isaga ugu cilmi badnaa Shacbina waqtigiisii isaga ugu cilmi badnaa wa sidoo leeyahay isagu weey واي نكالنا وشاق وحو مركا أها أصحابتو تشوغا أيو فتوى ذا بحنجر نكالو سلفكينا وحو لايه شنبقلو أصحابي والله كل ما نأرق نكا شعبية تابعي نكا علمي بضان ما نأرق وحو أها ننشمري يرد أما أن كوسنين نيرو دوبان بو عاقابان marka waxa la oran jiray aqoontaaduna way badantay itaalkaaguna uu yar yahay waxaana cilmi halkeed ku sidaa waxa la iga raacay buu mataan baan ahaa mataan marka riximka hooyo ayaa aniga iyo mataankii kale nagu qaybsamay awoodii labadaydaas kala qaybsanay ninka isaga waxa la weydiiyay imaam Shacbi rahimahullah cilmiga badan maxaad ku heshay wuxuu waxaan ku helay saddex arimood بعلو الهمة همدا يدو سريسي وصبر الحمامة يا حمام كشبرت الله يرى هذا سبر كيدو كلنا والله وبكور الغراب كالله هذا تكوه كلنا والله شمبر كان تكاه صومادر صباح دي ينقصوا كالله يا وكماش نونك قايلنا يا ولقينا وان كله يشري ولقينا وان سو سبريي ولقينا هنكي وسريو ومد علمي قاعدين نور ريابان اسكديج إنك عينك أن عاد عبادة بدنا إمام الشعبي وحو كمدي أئمة واوين كان فقه يا حديث محدث فقيه أيوها مفسر رجيها الله يبو كمدها وحاول قاتلوهم على جورهم كل الدقالة مرهر بني أمية كرتر هذا واستغلالهم الضعفاء هي مساكين تأيد المين يدبين وإماتتهم الصلاة هي الصلاة دي نقد ليه صلاة دي يدنا وين نقد ليه ووقت جادي بكسارة أو وقت جينا بيجا وتدك تكنشرة بيجا أو جمعي با ولا تكنشرة جمع ويكون تكنشرة لكن مرة كقار كود بي صلاة تدك كخل خليجت وليد بن عبد الملك بوها من فلايا يسقى عبسن غير بني مايا هنوها دينا عبد الملك بوها isagoo cabsan buu salaadii subax dadka tukiyay afar ragcadood buu ka dhigay markaasuu ka soo horjeedsada markaasaa wuxuu hal aziidukum miyaan idin kordhiyaa markaasay dhahan wala zilna fi ziyada marka horaabay kororsanaydba marka horaad afar ka dhigtay miyaad ku sii waday culimada iyo asxaabta iyo way iskala tukan jireen goonina way u tukan jireen waxay oran jireen fitnadooda dooni mayna in la dagaalanay waqti salaada waqtigeedana aynu tukanno jamacoodana aynu la tukanno si aan la inoo oranin umadii bay kala kiciyeen asxaabtaas ay ula dhaqbi jireen marka ninkaasi hadalkaas u jeediyay dagaalkii markuu sidaa ku sii bilaabmay xabadu way socoto mushkiladan ilaa 4 sano ay socotay
laakiin waxay sii adkaatay 103 maalmood 103 maalmood baan meel kale loo kala kicin waa 3 bilood iyo badh intaasay xabadu socotay gowda un la isku hayay waxa la galay 4 dagaal 103 maalmood waa niman dagaal cuna oo inta cadawgii la dagaalamaya mujaahidiintii baa ishelay 4 ka dagaal 3 bilood iyo badh ka dhacay 3 waxa lagu jabiyay Xajaaj iyo colkiisa